halka warkaasi kala socotaan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudano waa telefishinka qaranka Soomaaliya xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho ayuuna warku idinkaga imaanaya markaana akhbaaraadka caalamka naga soo gaaray. warar dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayeen toogashadii shalay ka dhacday wadanka Mareykanka gobolka Carolina iyadoo halkaasi uu ku dilay nin cadaan ah ilaa 9 ruux oo u dhalatay wadanka Mareykanka. ducooyin iyo alabari ayaa lagu soo waramayaa in lagu qabtay meelo badan oo dalka Mareykanka kamid ah kadib markii uu nin cadaan ah ku toogtay 9 ruux shalay gudaha kaniisada lagu magacaabo Carlis ama Charleston ee ku taala koonfurta gobolka North Carolina ee dalka Mareykanka. ninka cadaanka ah ee toogashada geystay oo lagu magacaabo jiray ama lagu magacaabo Dylan Fo ama Dylan Rof oo 22 jir ah ayaa waxa gacanta ku dhigay booliiska gobolkaasi koonfurta Carolina. dadka uu toogashada ku dilay oo ahaa dad ka soo jeeda Mareykanka madowga ah oo markaa ka koobnaa 9 ruux ayaa waxa ay kala ahaayeen 6 haween ah iyo 3 rag ah oo markaasi uu ku jiray wadaadkii kaniisadaasi ka wacyi jiray marka ay dadku isugu yimaadaan munaasabadaha waaweyn. booliiska gobolka Carolina ayaa waxa ay bilaabeen baaritaan ay ku sameynayaan ama ay ku ogaanayaan waxa sababay toogashadaasi inay ka dhacdo gudaha kaniisada Charleston. madaxweynaha wadanka Mareykanka Barack Obama iyo xaaskiisa Michelle Obama ayaa waxa ay sheegeen inay aad uga warwarsan yihiin dhacdadani xanuunka badan leh ee ka dhacday wadanka Mareykanka. waxa kale oo intaasi ku daray madaxweynaha Mareykanka Barack Obama inuu aqoon u lahaa qaar kamid ah dadka lagu toogtay kaniisada oo markaa uu kamid yahay wadaadkii ka wacyi jiray dadka halkaasi. dhacdooyinkan jinsi nacaybka ah ama dadka madowga ah lagu bartilmaameedsanayo ayaa dhawaanahanba waxa ay ka socdeen wadanka Mareykanka iyadoo booliiska wadankaasi lagu eedeeyay dhowr jeer inay dileen dad u dhashay waa dad Mareykan madow ah oo markaasi iyagoo aan waxba galabsan ay ciidamada booliisku toogteen. iyadoo shaqaaqadaasi ay jirtay barnaamijyada ay ka dhacayeen dalka Mareykanka meelo kamid ah ayaa hadda waxa jira in dhacdadani cusub ay soo korortay oo ilaa 9 ruux oo madow la dilay. taas ayaana waxa la sheegayaa inay qayb ka noqon karto qalaaso inuu sii kordho. gudahaan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudano warka caalamka ee telefishinka qaranka Soomaaliya aad ka daawanayseen waa naga inta jimco wanaagsan warkayaga 5 galabnimo intaan ku kulmayno nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatuh. wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca gudaha dalka iyo dibadda kala soco telefishinka qaranka Soomaaliyeed SNTV.